xogta iskuulka kolley ani isagoo iskuulku 2 bilood 3 bilood jiraan ku soo biiray laakiin muddo badan kolley iska dhegaystaan ahaa suuqa hore waan ugu jiray laakiin waan dhegaysan jiray ilaa markii dambe aan xagga sare soo koray habeen su'aalahan weydiiyey danna aan sidii kaga mid noqday akademiyadda iyo maxay tooleen xubnaheeda steps iyo process badanna waan soo maray kolley dhegaysto badan baan ahaa muddo 4 bilooda kadib barnaamijkan habeen su'aal weydiiyey mtrade su-aashii markii layga jawaabay habeen kasta waan soo qabsan jiray waxaana ku darsan jiray wixii fikra intaa kadib waxaan ku biiray group 5 markii aan ku biiray waxaan noqday leaderka iyo guddoomiyaha group 5 kadib waxaan kasii gudbay in aan noqdo maxay tole co-hostiga spaceka after macalinimo after guddoomiye ku-xigeenka hadda iskuulka waana u mahadnaqaya dhammaantood maamulka shaqada quruxda badan leh aan wada qabanay intaa kadib markaan ka imaado sanadka akademiyadda waxa uu qabsamay waxyaale aad u fara badan waxa ugu horeeya 7 galaas ayaa si rasmi ah u dhammaaday galaaskii 7aadna insha Allah dhowaantood xafladooda loo qaban doono galaaskii 8aadna hadda wax dhowr cisho ka harsan yahay ay u bilaabmi doono waxbarashadu gruubkii koowaad waxa lagu bilaabay 32 arday gruubkii labaad waxa lagu bilaabay 94 arday gruubkii saddexaad waxa lagu bilaabay 89 arday gruubkii afraad waxaa dhameeyey 94 gruubkii shanaad sidoo kale waxaa ka baxay 86 arday gruubkii lixaad waxaa ka baxay 69 gruubkii toddobaad oo hadda isna dhowaan qalin jabintiisu ay dhici doonto waxbarashadana wiigan usoo dhammaadeen waxaa ka bixi doona 67 arday group 8na hadda ayuu socodkii iyo maxay talo waxbarashada u bilaabmi doontaa sidoo kale akademiyadda sanadka waxa uu qabsoomay ilaa 5 mentorshipkuna waxa weeye galaas lagu barto only technical analyska oo qofka ka soo baxo akademiyadda galaaska koowaad ama heerka koowaad oo heerka labaad uu sii qaadanayo si uu noqdo full trading ama qof maxay tole istiraatiijiyadiisu aad ugu fadhido intaan ogahay 5 maxay tole mentorship ayaa baxay 5 mentorshipkii ugu horeeyay waxa lagu bilaabay 16 arday mentorshipkii labaad waxa lagu bilaabay 30 arday mentorshipka saddexaad waxa lagu dhameeyay sidoo kale 30 arday ka afraadna 27 kan shanaad hadda insha Allah dhamaan doonana 27 oo ka afraada iyo ka shanaad oo 30 ayaa baxay falillahi alhamdu wal minna intaas kadib ardayda waxay kor u dhaafeen 570 arday ay kor u dhaafeen inta ka baxday muddada sanadka ahayd sidoo kale habeen kasta intaan ogahay 2 habeen mise hal habeen mooyee inta kale spaceka habeen walba si rasmi ah loo soo koraa 2 hour ama 1 hour iyo badh lagu jiraa celcelis waxaana la isla wadaagaa niyisada iyo arrimaha kala duwan ee suuqyada digitalka sidoo kale waxaan qabanaa barnaamijyo wacyigelin oo suuqyadan iyo wacyigelin guuda sida qofku in maxay tole uu kobciyo garaadkiisa buugaag in loo soo bandhigo loo soo khulaaseeyo in laga dhiso xagga maxay tole fahanka iyo kobaca maskaxdiisa iyo horumarinta naftiisa iyo barnaamijyo kala duwan oo dhalinyarta ay uga faa'iideysanayaan maxay tole horumarinta noloshooda sidoo kale waxaan qabanay 2 barnaamij oo muhiim ah oo muqdisho iyo magaalada hargeysa aan ka qabanay barnaamijkaas 2 barnaamij oo isa saaran bay ahaayeen oo muddana ay u dhaxaysay barnaamijka koowaad waxaan ka qayb gashay FCFC magaalada muqdisho barnaamij lagaga hadlayay dhaqaalaha adduunka sidoo kale iyadoo uu ku matalayo shakhsi qiimo badan hargeysana waxaan ku qabanay madal aan ugu talagalnay dhalinyarta hargeysa in lagu baro suuqyadan kala duwan waxaana aan ku qabanay goob ka mid ah goobaha magaalada hargeysa kadib waxaa ka soo baxay arday qiimo badan oo group 5 inta badan u badan sidoo kale isbuucii hore waxaa noo qabsoomay in aanu faraayil ka qaybino magaalada hargeysa dhalinyarteeda sida meelaha iskugu yimaadaan goobaha caweyska goobaha lagu qaxweeyo iyo goobaha dhalinyartu ku kulmaan iyagoo aan ugu qaybinay ilaa 400 oo arday ama 400 oo qof ogeysiis ku saabsan SFC iyo halka ay tiigsanayso iyo suuqyada digitalka iyo inay kasoo qayb galaan kacaanka isbedelka adduunka teknolojiyadda lagu wareegayo iyo lacagaha digitalka marka intaas waa waxqabadka sidoo kale shaqooyin aad u fara badan baan ayaan ka qabanaa qaybaha kala duwan ee bulshada hadday tahay in la support gareeyo hadday tahay dhalinyarta aan awoodin in waxbarasho free la siiyo iyo ka qaybgalayaasha supporterska SFC in la siiyo maxay tole hadiyado kala duwan sida lacagyo iyo waxyaalo kala duwan oo markasta qofka lagu dhiirigelinayo SFC kaliya maaha meel loo furtay in laga macaasho kaliya laakiin waxaan hadafkaygu yahay waraaqaha aan maxay tole aan mar walba ardayda u daabacnana ay ka mid yihiin inaan soo saarno dhalinyarada xirfadlayaala
oo suuqyada digitalka ka shaqeysa oo millionaires oo lacagtooda iyo hantidooda ku faana oo si maxay tolay aan dhidid iyo tacab iyo ehel iyo toona kusoo dhacsan ee iyadu maskaxdooda iyo aqoontooda kusoo dhacsada ay soo saaraan sidoo kalena ay bedelaan jiilka dhalinyarta maxay tolay mustaqbalka caalamka ee qayb ahaan gaar ahaan Soomaaliya waana hadafkayga ugu weyn insha Allahu tacaala in gobolada iyo meel kastoo Afrika iyo geeska Afrika siiba ahaan ee dhulka Soomaalidu degto laga furo akademiyad lagu baranayo qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha qofkuna wuxuu ugu badan ugu baahan yahay waxa weeye in loo manage gareeyo dhaqaalaha iyo sida uu maxay tolay u shaqeeyo quraankana meelo badan bay ay ku soo aroortay ambiyaduna nebi yuusuf baa hormuud ka ahaa oo ahaa shakhsi dhaqaaliyahana oo dhaqaalaha maarayntooda ku fiican sidoo kale waxaan ugu talagalnay inaanu soo saarno administration ka shaqeeya institutionada kala duwan ee dowladda Soomaaliya oo u qaabilsan kana faham fiican maxay tolay dhalinyarta kale una leh aqoon iyo khibrad badan suuqyada digitalka iyo suuqyada dhaqaalaha caalamka siduu u shaqeeyo inahaas waa inihii muddada sanadka noo qabsoomay